السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا وناكسن ذلانتين با توضشيدا نجعل هاي ميل والبون نقد دعوانيسان isla markaasina maqalkayga muuqaygu ka soo gaadhayo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni masrax jawaalabaad ka daawataan shashada caalamiga Horyaal 24 TV xarunta dhexe oo ku leeyahay gudaha caasimada Hargeysa ala barnaamijka waxaad la socotiisa anigoo ah Salma Caawad sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo casuunaa fanaaniintii hore kuwa dhexe iyo waliba kuwa haatan loogu jecel yahay وتاي مرتدى برامج كعواديات باي قالوا تاي واحد برامج كعوان وقول مرتي أحمد محمد أحمد أرشي وكوسو دويني يا أحمد برامج وكدوا هاي برامجك سلمى وين دوا هاي وتاي بلا أحمد ورتو داوداش يدوي كادركسين ينو حنقول وما بهنا ده هذا البدن لكن هذا قوس حسوسيني ودع كرتين يشعليني تاريخ هذه هراء يروق عذا هل كانت فنك كسوق شيء هل كانت كودالتي هل كي معكو شاهد كبربارتي كلي تناقشوا هركيسون بي أن كورو ريجسه أن هذي واحد برشة هاي هذي نلش عادي قت هاي هذي نعكست هاي يو دمبينتيو أن فنك أن كسوق لي إلى يوم كان هركيسه إن تسافر وقبحه ببرنامج له أم بهول كلوا سافر وغيره بحلو يعني لكيسول فقعد وقت مشاهد توت فقعت مرنا ودمada caalamka kalaatiyad inaad tagto yar fogaato kulleed qofku intuu nool yahay noloshiisa uu dhaqdhaqaaqaya laakiin meel buu yahay beeskiisa basalkiisa uu joogaya kale lama horaana waatay Axmed Tulo heesta fanka ku soo gashay maxasuusta ama taariikhda fanka aad waad soo gashay kale waxna waxay noqonayaan official markii uu dhameysay sidii ugu weyneed masraxii ugu weyneed soo istaagtay waxna waxay noqonayaan markii hoostaad ka soo bilaabaysay iskuul baa ka soo yeesay jaamacado wadasoo waxa la soo yaraayo ilaa iskuul ka soo yeesay joogo bulshada aan ka tirsanaa waxana hawn qof ugu suntan xagga fanka markay noqoto iskuulka waxa laga yaabaa iskuulka iyo galaaska iyo marka la yiraahdo xaflad baa jirta amba la doonayo in stresski wax la iska baabiyo qofka ugu horeeya la xasuustaan haa marka la oranay Axmed baa joogo inoo sii wadaya hawsha waxaan wahibo kuwa la yareedba ha waa tahay heesti kuwa fanka caadiyan aad ugu soo gashay laakiin heesti koowaad tan TV de ka soo muuqdo waxay ahayd xidigaha intaanan soo gelin aduu sanadkaas un bay ahayd أيه هذا هذه واتاي أحمد تقول أرش محكو بحثنا نستناي وحنا هاتاجرة أن كوبيت عكتها سلامر كان قالهان كوح الله يلهذا أرسنال إلا يوم كان عن تاجره أيا وقتي هذا كم يدو وقتي هذي أن قاعد كوي تاجر شري أنا دفن كيو حينكم مش مصنعين تاجرة صح هذا de xagga hore kuraasida fariisin jiray markaan daawanayno ayaa waxa jiray ciyaartay ruush ahaayo la oran jiray Andre Arshavin oo aniguna kooxdii aan taageereen hadana si gaar ah isaga si taageeri jiray oo habeenku maqayn laga xasuusan jiray oo niyo waan boring fan ha marka deetana saxaabtiiba waxa arsho way go'an jireen kadibna markii dambe aan xidiga haymid ayaa حسن سليمان دحول صالح وهبين وحي ويدي مياد ليدا وحنا نيسا خاصة أنا وحنا قلت شوابي أن نيو أرشو هي يقول هذا الصحاب تيدون بان يقول يران كتبنا وحي يقول لي أرشو هو محايو سيدي بان يقول شي كي عيارتي روشو ساسو كسوري أوكي وينو صومالييننا أرشي وإري بمقع في صوماليا مركا عادي لو يقول مركا يساقونا انتا سوكو كرديو dhaqankii iyo afkii ayuu leekaysiiyey markaas sidaas waan fasira waa tahay dadku daawadayaashu tulu waxay leeyihiin hadalkii bay badisay oo heesahaaga lama sugi karaya heesta kuwa barnaamijka ku furayno mehersan tulu laxanka midhaha erayada waxa sameeyay Cabdullaahi Xasan Gani laxankana waxa saaray al-ustaad Mustafa Kiiko ميوزيكنا وأحمد ولي سداسي كسرت يستاس واتهاي مركنا ميكروفون كأيه وحنا وكلا بحياة دوينها
daawasho wanaagsan.
waan filaya daawadayna si weyn uga bogateen isla markaasina ay codkii macaan ee arsha idinka hesheen waa tiyaarshay isku soo noqono shees baduli la socotaa way soo dhamaatay taas waa tahay arsho hadii lagu meel baad u dalxiisaysaa tuu xagga jaraanay u dalxiisto dalka gudihiisa ama dibadiisa wadamo gaar ah adigu aad jeceshadii jireen kolay markay noqoto dalxiis waa dal iyo xiisaha dalka anigu waxaan u fahmay inuu yahay yani horta muhiimadu inay dalka tahay marka haddii la odhan lahaa imika baxa baaroorta bax waxaan tegi lahaa jasiiradda sacaadadiin ayaan tegi lahaa oo aan ku soo dalxiisi lahaa oo dee qayb ka mid ah dhulka hooyo oo aanan dee waqti aan tegin weli kugu soo halkaasaan tegi lahaa aad jeclaan la tagto waa tahay heestan gadgadoon maxay tahay dulow ereyada horta gadgadoon kulley maxaa loola goleeyay gadgadoonka xalay miya gama alay diiday hay baladu codkaaga macaan la beeray marka waxa sameeyay mawlid qolqol laxankana waxa saaray iskalaaji musico Axmed Weli Ibrahim Furila ka heesto waa sidaas waa calaacal iyo magaranaysaa qof jacayl ku xumaa waxba tabanaysaa nisiixan waay habeen hurdadii loo diiday codkaaga lagu yara maqashiiso aniga dadweynaha gadgadoonka xalimiya kama leediiday goyaan ku jiifiyo miyan ifay gogoshayda waa tahay markan heestan baan kusoo dhaweynayaa dadweynaha gadgadoonka xarimiya kama leediiday goyaan ku jiifiyo miyan ifay gogoshayda gurxanka iyo taahimiya gabila soo toosay gadgadoonka xarimiya kama leediiday goyaan ku jiifiyo miyan dhaafay gogoshayda gurxanka iyo taahimiya gabila soo toosay gooyahayga maad soo tubteen gacal wixii joogay ma kunteen sirtaydii halkay kocatay laabtaydu jacalkayga guuriyo cishqiga hela gudkiisii gooyahayga maad soo tubteen gacal wixii joogay ma kunteen sirtaydii halkay kocatay laabtaydu jacalkayga guuriyo cishqiga hela gudkiisii fallaadhuhoy geliyo waranka geestayga haysaa iga googamunkaygu yaan garasho aade fallaadhuhoy geliyo waranka geestayga haysaa iga googamunkaygu yaan garasho aade
taabsiiye la garwaaqsi caashaqan gubay naftaydii gargaar baan adiga kaa rabaa gacan walaaleede kul dalooladan qaari lahaa gacan la taabsiiyey la garwaaqsi caashaqan gubay naftaydii gargaar baan adiga kaa rabaa gacan walaaleede intan guudka kugu sidooy gaarasha joogtaay gaar baan adiga ku jeclahay waanad garataay ha ku faynin xiisaa gubaya warkayga intan guudka kugu sidooy gaarasha joogtaay gaar baan adiga ku jeclahay waanad garataay ha ku faynin xiisaa gubaya warkayga falaadhuhu igeliyo waranka geestayga haystaa iga googamuunkaygu yaal garasho aade falaadhuhu igeliyo waranka geestayga haystaa iga googamuunkaygu yaal garasho aade waa tahay daawada haddaan intaasi kaga soo noqono heestaadka macaaneyd axmedow bal markaan haddaan ku siiyo heesa laba heesood oo kale baan isku xijisanaba adiga bal markaan martida mudnaan ku siiyo heesadii noo soo qaban lahay waxaan soo qabanayaa hees iyaduna qiso ah oo la yidhaahdo munay noloshaada beegso nin abwaana sameeyey oo af burqada la yidhaahdo laxanka waxa saaray Jini Shumi muusikana Axmed Weli baa tumay heestaasi waa qiso dee aad iyo aad u murugo badan laakiin se waxan baan faahfaahinteeda kama bixi karnay aad iyo aad muhiimadiina ka raacayna dadka iyaga fasiran doona qofka dhan socotay cid ay wax ka anfacday iyo cid ay soo dhaweysaba aad iyo aad qodod bay xaaladahaas oo kale ku sugan dadkeenu deynayna waa tahay daawadayaal waxaan idin kala baxay heestaas iyo weliba codka macaan ee Axmed Aarshe daawasho wanaagsan jacaylka beermay hadduu nacab xaytabaas been unagu kala dhantalay haddaad awgay basaastay dhankayga miyaan badbaaday markii aan wada boqonay dhexdeena jacaylka beermay hadduu nacab xaytabaas been unagu kala dhantalay haddaad awgay basaastay dhankayga miyaan badbaaday tubtuuboo dhari ku wiiqmay hatuubala ku horseeday bukaankana kugu cosfiyey xusuustii miyaan ka bantay xusuusti miyaan ka bantay tubtuuboo dhari ku wiiqmay hatuubala ku horseeday bukaankana kugu cosfiyey xusuustii miyaan ka bantay xusuusti miyaan ka bantay
samaadka bukaygaanoon ka goynin hadduu calafkeeni baqday adoonigu haysan beerka adoonigu haysan beerka muunay noloshaada beegso waday ku baxdo baaraan bulshadee adduunka sidii qays loo bayanshay bandhiga can sheekadiisa balasha lagu qoro xusuusta miyaan lagu baran iskuulka waday ku baxdo baaraan bulshadee adduunka sidii qays loo bayanshay bandhiga can sheekadiisa balasha lagu qoro xusuusta miyaan lagu baran iskuulka jacaylyoon baaxad weynay dhibkaadi badiyo xanuunka haddaanu dhinto basexdo miyaan geli bugti wankaaga miyaan geli bugti wankaaga jacaylyoon baaxad weynay dhibkaadi badiyo xanuunka haddaanu dhinto basexdo miyaan geli bugti wankaaga geli bugti wankaaga jacaylkii bari samaadka bogaygaanoon ka goynin hadduu calafkeeni baqday adoonigu haysan beerka adoonigu haysan beerka muunay noloshaada beegso jacaylkii bari samaadka bogaygaanoon ka goynin hadduu calafkeeni baqday adoonigu haysan beerka adoonigu haysan beerka muunay noloshaada beegso waa tahay daawadayaal hadda intaas kaga soo noqon heeska aadka u macaaneyd axmedo haddaan tolo ku dhaw waan ku casuumayaa ama cashan kugu casuumaya ama waxaan kugu casuumaya qado tolo maxaad cunto noocmaad ku karin lahaa ama aan kugu casuumi lahaa ni waxay noqonaysaa waxa jira xaalado waqti halka markaa waqtigaadi casuunto ama teedkii wixii uu tabayeen markaa xiisaynayo baan ku oran waxaan sheegay xaaladaha gaar cunto inay damayde eeg waxa laga yaabaa marbaad waxbaad xiisaynaysaa soo ma marbaad iska jeclaataa niyo maanta waxaan waad ka daashiyay waxaan kala cuntay صح وانا anigu fahansan waxyaalaha ilmi marro qof marka waxaan ka helay cunto aad si gaar ah marka uga hesho adigu ma jirto laga yaabaa anigu imka ka helay in marka ka heli waayba waxa la xaaladaha qaar baan waxba cunin dameena waxyaabo kala duwan baan nasoma haddaad hal maalin walba wax xun lama cuno waad kala bedeshaa talo cuntooyinka asliyan bateebaad jeceshaa midaad kala bedeshay midaad caado u leedahayba cuntooyinka walaal yarto wadaniga kale waan iska jecelahay sababtoo wax kaliya la hubo aadiyaan tiyadeedu way meeshii ka yimaadeen meeshii ku dhaw wax kasta aadiyaan kaani way jiraan waxyaabo badan adigu cunto wadaniga isku cantiin waan jecelahay qayb kamid waa tahay axmed haddaan ku oran lahaa 100 baan ku dhiibayaa maxaad ku sameyn lahayd 100 Soomaaliland may $100 kulay horto de wax lagu sameeyo waxa ugu khayrka badan leh kulay inuu weynaan xisaabinone
boqol kun iyo wax ka badanba dadka way soo maraan hal mar un baan inta badan soo gelin adigu wuxuu maan ku samayn lahaa un wax taariikh ka tago oo weliba taariikh wanaagsan oo xagga khayrka ana iyo wanaag oo ummadu igu xasuusato intii awoodeedu leekaataba un baan kaga tegi lahaa taas iyadu imika bintii karnaa 100 kun kuma xidhnee المعنى ها لكن سي مهمة واحد ويان هرتين خير واحد تاريخ وناكسين كتجا أنا تقول سميس أولي ومضى وحترة هذه واتاي هستي مركنا نوع نحتاج إنه قد يجينا هستي مروده عاشقوس واتاي نوناد بمسلامية هستي الله حنكملها هي ريال هسه هو حاملها له صدق واكي صحيح لحن كنا الأستاذ عبد الفتاح مختار ميوزيكال أحمد ولي أنا قلنا أنا وهيست ولي أحمد واتاي مركنا دبرن داوداش يديموك كلا بحية داوش ونكسر عدار سوتشيتا عرفقا قواقوني عدك لو حشان جوقي ودوقا قواعودكا أما عدار سوتشيتا عرفقا قواقوني عدك لو حشان جوقي عينك عركة يحك صومودا عدني روياني عريدك تتكا تشوقا معد باكو قاريسا علشان افتنكاجا معد باكو قاريسا علشان افتنكاجا عينك عركة يحك صومودا عدني روياني عريدك تتكا تشوقا معد باكو قاريسا علشان افتنكاجا معد باكو قاريسا علشان افتنكاجا هدي على عاشقو استيدا هدي ألف كبور كيقو نقضي عاشقو استيدا عوادي دوياني عاشقو قوليستو عوادي دوياني عاشقو قوليستو عاشقو قوليستو على فكور كيدو نقضي عاشقو استيدا هدي على فكور كيدو نقضي عاشقو استيدا عوادي دوياني عاشقو قوليستو عوادي دوياني عاشقو قوليستو عاشقو قوليستو كتيما تشوقا غير بهدو لايدو كو عيارتو عديقي دحدو عاردو وين غير كتيما تشوقا غير بهدو لايدو كو عيارتو عدوخي
siman kubkee buuxa cududaha lafiyo jilba uu caadil miisaamay camirnanta qortaada cabadhiya garaarane caashayadunbaale cabadhiyaha garaaraystay caashayadunbaale siman kubkee buuxa cududaha lafiyo jilba uu caadil miisaamay camirnanta qortaada cabadhiya garaarane caashayadunbaale cabadhiyaha garaaraystay caashayadunbaale haddi calafka guurkaygu noqday caasho koostayda haddii calafka guurkaygu noqday caasho koostayda cawaadayda wiyaani caashaquu guulaysto cawaadayda wiyaani caashaquu guulaysto caashaquu ha guulaysto calafka guurkaygu noqday caasho koostayda haddii calafka guurkaygu noqday caasho koostayda cawaadayda wiyaani caashaquu guulaysto cawaadayda wiyaani caashaquu guulaysto caashaquu ha guulaysto waa tahay daawadayaal waan filaynay heestii marwadayna idinka wada bogatin oo idin dhagaysateen axmedow waxaynu kusii saqaynaa guntii gabagabadii barnaamijka talow may jirtaa qiso kugula yaabanayd social media intaad isticmaashaysay aad ku dhaxrato baryahan dambe media aad buu wareersan yahay sheeko aad kula la yaabto oo kale yacni markay dee media noqoto aniga wuxuu baan aad ula yaabaa hadday fan noqoto hadday heesa noqoto hadday media caadiga noqoto waxaa jirta imika in si khaldan loo isticmaalo oo meel kasta Facebook hadaad gasho YouTube hadaad gasho hebeloo afka furtay hebelaayo afka furtay markaa waxaan oran lahaa inta heestaanaha heesta oo qofku markuu mihnad ku jiro mihnadiisu waa gaar maaha mihnadii in wax kale lagu daro oo inuu qofku heesadu heesiyo si nadiif ah oo anshax iyo asluub leh u heeso kuwa media dee sii daaya baahiyaane waa inay wax kasta runta ka sheegaan laakiin aanay noqon wixii wax lagu ganacsada ay noqotay imika eebaha dadka in laga ganacsada runtii waa wax aad iyo aad u foolxun ولندن واحد الكسالة جيب جاي هبل باندين هي فضيحة absolutely marka waxa leeyahay dadka أحمد ولو كاجي فايدين وقتين مجرنا كونا جارة وداودش هذا الشيء إن لو سميسته dee way badiyay Facebook way jiraan Instagram ka way jiraan laakiin si alxamdulillah anigu ma arag dad wax uniga faafiya kuwa isticmaalana waxa isticmaalaan taageer ahaan iyo wanaag u baa isticmaalaan ma arag dad xumaaniga isticmaalaan aad iyo aad bay u maasiin taageerayaashan aad iyo waa tahay Axmed oo barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynaa heestii Bunyo Salaad laxanka musiga iyo waliba ereyada heesta ereyada waxa iska leh Xaashi Ibrahim Saar laxankana waxa leh PK miskina xululi dee taageerayaashan way noo qaadayna maadaama intii ugu badnayd dee ay jacaylkii iyo calaacalkii uun garanaysa bal inay maxaa sax loo qaldamay bal inay iska yardidiyaan bay noqonaysaa aad iyo aad ku daawanaysaa waa tahay daawadayaal waxaynu ku soo duubnay fadhigii baynu ka ciyaaray heestan
intii gabagabadii barnaamijkana waanu jeclaan halkan inaan sii fadhino isla markaasna aan idila socodsiino barnaamijka si waqtiga gabagabaawgii waxaan jeclaan inaan barnaamijka soo afmeero oo soo gunaanado kamarada quruxda badan aad arkaysaan waa guleed dhanka farsamada waa Gariyaad Axmed Aarasho waqtigiisa muhiimka na siiyay waan mahad celinaynaa